waxaa jira adduunyada wadamo badan oo landlock ah oo aan lahayn bado aan badmarin. adduunka wadamadu haddaanay bad lahayn kalluumaysina ma leh, dekadana ma leh ay maraakiibtu bannaanka caalamka intay wax ka soo gataan dekeduha ay ugu soo xidhaan ma laha. Wadamadaasi way badan yihiin 44 wadan oo adduunka ku yaala ayaan bad lahayn oo landlock loo yaqaana. 15 wadan ayaa Afrika ku yaala. markaad eegtid Aasiya oo kale 12 wadan baa jira oo landlock ah. Yurub 14 wadan baa jira. South America 2 wadan baa jira. laakiin North America dhammaantood baday leeyihiin, dekeday leeyihiin. Australia dekeday leedahay. marka caalamka wadamada ka jira waxaa loo yaqaanaa landlock iyo double landlock baa kala jira. wadanku hadduu landlock yahay micnaheedu waxa weeye wadankaasi deked iyo bad ma leh, laakiin wadamada deriska la ah ayaa leh dekedo. laakiin haddii la yidhaahdo wadankaasi waa double landlock la yidhaahdo micnaheedu waxa weeye wadankaasi bad ma leh, wadamada la deriska ahina ma laha bado, wadamada lambar 3 ah ama lambar 4 ah ayaa dekeda leh oo micnaha wadama u dhaxeeya. marka wadankaas oo kale waxaa loo yaqaanaa double landlock ama double landlock haddii micnaha intaas oo wadan ay u dhaxayso. laakiin haddii uu wadanku uusan dekada iyo bada lahayn laakiin wadamada deriska ahi ay leeyihiin dekedo waxaa loo yaqaanaa landlock. waa sida Ethiopia oo kale. dalka Ethiopia ma aha double landlock, double landlockna maaha, waa landlock kaliya. micnaheedu waxa weeye dalka Ethiopia bad ma marto, laakiin wadamada deriska la ah ayaa bada leh. Eritrea, Soomaaliya iyo Djibouti saddexduba waxay leeyihiin dekedo. marka dekedahaas ay isticmaali kartaa waxay bixinaysaa service iyo adeeg bay bixinaysaa. in loo adeegay dekeda canshuurteedii ayay bixinaysaa iyo servicekii loo sameynayay. waana simple, way la soo degaysaa. laakiin wadanku ma odhan karo maadaama aan landlock ahay ama double landlock ahay waa inaan wadamada ila deriska weeraro oo aan dhulalkoodii iyo badahooda qabsado si wadankaygu uu dekedu yeesho. waa khasab inaan deked yeesho wadan ma odhan karo. haddii caalamku saas u shaqeeyo dagaallo iyo xuruub iyo lagama baxayo. wadamadu waxay leeyihiin sharciyo caalami ah oo badaha, hawada, ganacsiga iyo waxyaabahaas oo dhan ay kala haga. haddii qofku yidhaahdo waxyaabaha ganacsiga kala haga ama sharciga badaha ama wadamada deriska say u kala adeegtaan ama maxay ahayd haddaan landlock ahay sidee baan u heli karaa bad oo wadamada ila deriska canshuurta ay iga khafiifin karaan, waa sharci qoran oo la yaqaano. laakiin wadanku hadduu yidhaahdo deked anigu aan leeyahay baan rabaa oo wadamada ila deriska baan rabaa inaan deked ka soo qaato, wadankaasi wadan colaad ku jiro noqonaya. dekedna ma heli karo, meeshuu xoog ku qabsadana dekedii kama dhisi karo. dekediina deked nabadgelyo ama noqonaysa deked la weeraro oo lala dagaalamay noqonaysaa. maraakiibtuna iyo insuransiga caalamigiina maraakiibtooda kuma soo xidhayaan deked xoog lagu dhisay oo wadamada deriska ahina ay soo weerarayaan oo aan nabadgelyo ahayn. wadan imanaya ma jiro, markab ka soo xidhan kara male, sababtoo ah waa insurances bay ku jiraan maraakiibtu, mana tegi karaan meel ay og yihiin in la weerari karo. safety-ga ayaa number 1 ka ah. risk assessment bay sameynayaan, wax ayan hubin maraakiibta iyo diyaaradaha uma safraan. haddii wadamada dagaal ka dhacaan dekedahooda laguma xidho. haddii diyaarado ay aadi lahaayeen waa laga hakiyaa. adduunku digniinuu bixiyaa. marka wadan kale intuu weeraro oo baddi iyo dhulka ka qabsado oo deked xoog uu ku dhisto buu haddana ganacsiga caalamiga ugu soo xidhanaya oo safe noqonaya. waa waxaan macquul ahayn. marka Ethiopia ma aha double landlock, double landlockna maaha. Ethiopia waa landlock kaliya. waa 3 wadan oo la derisa ayaa saddexduba waxay leeyihiin dekedo oo ay si dhib yar u isticmaali kartaa. barnaamijkeena intaasaan ku soo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullah.